maanta boqosho dalka ku yimid Safiir xigeenka Britain u fadhiya dalka Ethiopia Mr. Chris Allen dalka hore u yimid fara badan arrintan oo muujinaysa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Britain iyo Somaliland cooperation kale dhinaca nabadgelyada leh xagga dhaqaalaha iyo guud ahaan dhinaca xagga horumarka Britain waa dalka ugu badan ee mucaawino siiya Somaliland waxaan rolaynaa dowlad ahaan iyo shacab ahaanba xiriir soo jireena ku dhisan iskaashi iyo qabsi si isku dheelitiran ay labada u shaqeeyaan maantana booqashadiisa halkan dalka ku yimid madaxweynaha la kulmay waxay la xidhiidhaa sii kobcinta iyo xiriirka labada Britain waa saaxiibada ugu dhow ee dalka Somaliland dibadda ku leeyahay wadamada reer galbeedka waxaanu rajaynaynaa xiriirkaas inuu sii kordho waxaa baryahan soo baxaya murano iyo hadallo aan xaqiiq ahayn oo sheegaya sidii wax xiriirka Somaliland iyo Ingiriisku imika sidii hore ka khatiibsan yahay arrintaasi waa arrin aan jirin waa arrin ka fog xaqiiqda sidaan sheegay Britain waa dalka ugu badan ee mucaawino siiya dalka ugu badan ee xagga amniga iyo nabadgelyada kala shaqeeya Somaliland imikana waxay nagala shaqeynayaan dhinacyo cusub oo xagga dhaqaalaha iyo horumarka ugu badan yahay marka waxaan jecelahay arrintaa insaan loo fahmo waxaan ku soo dhaweynayaa Mr. Chris Allen. Thank you very much, Martin. I should begin by wishing a very happy Islamic New Year to all Somalilanders from me and from the British people. I think the phrase is something like Sened Wa'an. I think I've got that wrong. So happy New Year. We've just had a very rewarding meeting with President Solano and with his team of ministers, in which we reaffirm the United Kingdom's commitment to its strong and historic friendship and relationship with Somaliland. The strength of feeling about this relationship in the United Kingdom should not be underestimated. We're committed to a number of issues around the Horn of Africa, including human development, security and stability. But we're also deeply committed to this historic friendship between our peoples, and I wanted to reaffirm that this morning with the President. We talked about some of the cooperation the United Kingdom and Somaliland share. We talked about our development relationship. I'm very pleased that we will soon be launching here in Hargeisa the Somaliland Development Fund. It's a new programme of bilateral development assistance which the United Kingdom has helped drive here in Somaliland and will for the first time align the donor community's funding and efforts behind Somaliland's own national development plan. We hope to launch that here in Hargeisa in just a few weeks' time. On security too, we find ourselves one of Somaliland's closest supporters, helping your security forces and your government maintain stability in this region. That's extremely important to you and it's extremely important to us. And on the politics, we remain, as I've said, we hope Somaliland's closest friend in the international community